السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان umada Soomaaliyeed oo odaga xaj suuleeyaha oo barnaamij yar halkan uga hadlaya barnaamijkaas ku saabsan rag waayadii dambe ku soo aanbaxay inay hablaha Soomaaliyeed caayaan oo canjarafeeyaan oo ambaar dusha uga tuuraan oo waxaysan ahayn iyo waxaysan u qalmin dusha uga tuuraan oo ay waxa weeye aad iyo aad karaamadoodii iyo sharaftoodii ay uga xadgudbeen waxaas rag lama oran karo waa wax ma garato waa wax ma yaqaano kusoo buuxsamay baraha bulshada oo waliba qof baa fakirkiisa iyo ra'yigiisa haduu macala wax dhalisan yahay soo bandhigay nimankan waxooda dhaliil ma ah ninkan waliba la yiraahdo maxaa magaciisi xariye way ninkaas xaliye lama dhaho marka waxa weeye ninkaas noocaas oo ku soo caanbaxay inuu haweenka wax ka sheego wuxuu mudan yahay in loo tuso waxa haweenku yihiin waxa kala mudan in wax loo sheego dadka tirada badan oo waliba dhalinyar u badan aan dhihi karo waxa weeye dameene dhaan raacda waxaan anigu idin sheegaya kelmad yar baa horta fiican in qofka xagga diiniga kana wax laga tuso ilaahay muxuu yiri waqad karimna li aadam ilaahay wuxuu karaameeyay bini aadanka wuxuu ilaahay ka karaameeyay oo ka sarmariyay xayawaanaadka marka eeg dadkiibu wuxuu ka dhaadhacsiiyay intoodii wax ma garatada ahayd haddaad haween aad meel la aadama saarsamaysid daanyeer baad war daanyeerka soo midka ilaahay adiga uu ka dul mariyay ma ilaahay karaamada uu ku siiyo bini aadan baad ilaahay bini aadamku ariga soo mid dal rabina ku xamdinid ma marka waxa uu nin weyn oo gariga fuurlo intuu telefoon ka soo hadlahay daanyeer baan waa leehaysan jiray waxaas waxa weeye maangaabnimada iyo dadkaas dameene dhaan raacdaygaay oo waxa weeye aan wax mowqif iyo wax ra'yi ayagu ay leeyihiin wax ku kala sooci karin baa waxa weeye in baraha bulshada joogo marka dadkaas waxaan rabnaa inaan u nasteexayno dadkaas waxaan rabnaa inaan wax u sheegno warninkan wax inii sheegaya warninkan wax inii tusaya warninkan wuxuu inii ku gubayaa oo inii ku dirayaa oo inii ka horkeenaya walaashiin hooyadii xaaskiin in adeertiin gabdhihii Soomaaliyeed oo sharafta iyo karaamada lahaa gabdhihii ummadda Soomaaliyeed la'aantood aan maanta meesha soo gaarnay waraa burburkii markuu dhacay waxa burburku sameeyay waxa dagaalka galay waxa dhaawacmay waxa dhimanay rag bay ahaayeen laakiinse kuwa maatada korinaya dumar bay ahaayeen kuwa dhaawaca dheeyay dumar bay ahaayeen kuwa dhaawaca markuu dhinto u burooray dumar bay ahaayeen kuwa agoonta korinaya dumar bay ahaayeen kuwa ninka markuu khayr mas'uulka noqdo ciyaalka gaajada meelaha ula orday dumar way waraa waxaas oo burburka yaani burburka oo sabay Soomaalidu waxay adduunka kale oo meelaha kale burburka ka dhacay uga duwanta oo waxa isku tiirsanaanta lagu tilmaamo waxa weeye laf dhabar waxa oo boqolkiiba laf dhabar u ah dumarka Soomaaliyeed dumarkaas marka waxay mudan yihiin in lagu bogaadiyo in waxay mudan yihiin sharaftooda iyo karaamadooda la ilaaliyo waxay mudan yihiin dawacadii midka xaliyo oo kala aboorkii midka xaliyo oo kala iyo waliba kuwa oo maanka ka xadayaba in loo nasteexeeyo in ragow meel looga soo wada jeesto in dadka noocaas oo kala ah aan waxa weeye barnaamijkooda la buumbuumin inaan meelaha la geyn in waxa weeye weelka bini'aadanku wax ku cuno oo dadka sharafta ay wax ku cunaan aan wax lagu siin hilbaha qaybta sare inaan la siin caloosha iyo meelahaas hoose u geey wax hilb saraha siinina oo rag caadiga iyo dadka caadiga ah oo sharafta la siiyo waxa dadka taas in loo waxa karantiinay xaq u leeyihiin أنا أعرف كاسمان ربنا كهالله إن شاء الله فكري ونلو ذاقي هدي إلهي إذ موحن جعل هنا مرر بدن كسوع العليو وعن ونستحيو رجع عمر دليرتا مسكح هذا عقلي لقى حظي حبلها الصومالية وشرفته وذا اللي واحد قد بيننا عنده ولا اللي ملك استو الصومالي ذو الدكتور ملك استو الدون كانوا والله ركعتان هاي رجع وحاوي شرفتي يقان وحاج شان يوحى قدان أج baajoga marka insha Allah kuwaas bayna ka badan waxaan in ka codsanayaa codka ina gaarsiisaan wax ma garatada iyo kuwa aqliga laga xaday iyo kuwa waxa weeye ku aanbaxay inay fiyus ku raadiyaan ama ay dhadhama yar ka raadsadaan hooyadood iyo walaashantay baraha bulshada soo fariisanay wax ka sheegan kuwaas baa waxaan rabaa inaa codka gaarsiisaan waa iga codsi
insha allah waxaan ka codsanayaa gabar kasta oo codkaas soo aragta ama daawata inay gaarsiiso waxmayaqaankaas si uu uga waantoomo howlaha uu ku jiro insha allahu geed dheer iyo geed gaaban baan u fuuli doonaa inaan waxa weeye wadadii saxda ahayd ku soo dugno ama aanu dadka isagoo cambaar leh aanu ka saarno aad iyo aad buu mahadsantihiin waan islaam